بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يا مرويين وبشرة أبو سعود أمانتي وسلامتي وسلامة صوت الدنيا وكل سلامة سلام كبير. وحنون هذا اللي يقدر سعودي يعين برنامج كان قابلين إذا ما دخل كسبة جمهورية الفقراء الصومالية آتي بيوم أكله تمام وضد كسبة ثاني ويكون مع سيدين وأنا أريد لو بهاي آتي وبهاي أنا وحنا لا أريد ثاني ما أعرف معه راسي في عن هاللغة قيد قلب سيدا لو أستيي ولا يرمارت معه أفرد بالوضع مرحلة قبتها هاللغة قيد قلب يعني لا يعني أنت كذب Soomaaliya waxaan idin dhihi lahaa maarta maxaan ku raadaa qabiil waa lagu hungoobay qabiil waxba noqon waa qabiil qarannimo ka fiican warin ma adeerayaal oo qarannimada aan xoojino Soomaaliya maanta hidii ay leedahay astaan cusub ka muuqato raad cusub ka muuqdo وحقبت عصبة كم وقته دولة ما تسقط هلاك كره الديلة له الولاية دوينة واحد كها سيدا وحقوق وضعهم وحقوق كرب كلامار تأيا كم وقت والله سقطان مارت معهم برا صوماليا ذاتك جوين ودوا إلى سقطان ساي هانجرتي ذاتك يرمان تقربها يوم ما قربها كل شيء ما يبغى يرام عن الله ما شاء الله كياني صومالي وحبك ما يقانان وحي كأوجيهنا مجران Soomaaliya waa maqli hayaan waxyaalaha idaacadaha ka arkaan ama TV-da ay ka arkaan bay maartay maxaan ku radaa aragtidooda tahay laakiin ahmiyad weyn siin ma hayaan waxa weeyaan maanta nabad haday dhacdo meesha loo noqonayo oo la isku haleyn kara oo ah beedkii iyo baradii annaga aan lahayn oo ka soo barakacnay waa Soomaaliya meel kale oo leenahay ma jirto inta ka ku siinaysa ma jirto maanta wax dhulka intaan leego waxa soo talaan iyo geed ay ku yaalaan dad baa talaasho iska leh 20 mitir oo dhir iyo 20 mitir oo gudub cid ku siinaysa ma lehin Soomaaliya laakiin waxa laga yaabaa magaalada afkeeda inaad ka qabsatid 100 mitir oo square inaad ka qabsatid waxa doonta aad ku dhisatid xoolo maarta aad ku xareysatid guriga aad ka dhisatid baraaga aad ka qodatid cidna ka kacaysan ku dhihin waa wadankaadii hooyo waa ciidaadii adiga iska leh xuduntaada ku aasa waxaan dhihi lahaa marka anigu hadalka waxba yaanaan ku badinin walaalayaalow Soomaaliya dadkii joogi jiray ama weynaay waa yaqaanaan maarta waxay ahaan jirtay kulay dadku waa yaqaanaan walaalayaalow waxaan dhihi lahaa xumaan waxba way la tari waysay wanaag baa ka fiican xumaan meesha aan joogno waad aragtaan adduunka meesha ugu dambaysan imaadnay ubad baan haysanaa islaamnimaan rabnaa dadnimaan rabnaa sharaf baan rabnaa gobonnimaan rabnaa annaga yaa marka maxaan ku raahdaa ninka aqoonta leh iyo ninka maarta aqliga leh iyo ninka cilmiga leh midna waxba uma ogol waxaad moodaa in isku keen saaray war eheltinimada aa Soomaali kulligeed waa ehelay maxaa looga tagay eheltinimadii maxaa wanaag looga tagay maxaa sharafta looga tagay maxaa la isu qolqolaynaya maxaa la isu kala tuuraya waxaan hadalkayga ku soo gaabinaya Soomaaliyeed xumaan wanaaga ka fiican dawlad la'aan ay dhantaa walaalayaal dawladdeena aan taakulayn waxyaalaha caloosha looga jirana isaga saarna waxyaalaha caloosha annaga nooga jira ee xumaanta ee eheltinimada kala fogeynaya ee bini'aadanimada kala fogeynaya ee islaamnimada kala fogeynaya ee Soomaalinimada kala fogeynaya waxyaalaha noocaas oo dhanna aan iska ilowno caloosheena aan ka saarno waa mahadsantihiin guulaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baa u mahadsantahay cabdi aad iyo aad halka